kolkii uu qasriga la wareegay dhowr maalmood kadib dabayaaqadii bishii May waxa al-shabaab magaalada Muqdisho degmada Dharkeynley ku dileen Aadan Cusmaan oo ahaa sarkaal laba xidigla ah oo ka tirsan ciidanka booliska isla maalintii ku xigtay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho waxa al-shabaab ku dileen sarkaal ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir kaasoo lagu magacaabi jiray Cusmaan Dheerey 23 May degmada Hodon ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waaxda Taleex waxa ay ku dileen taliyihii minashiibiyada waaxda Taleex oo lagu magacaabi jiray Cabdi Warsame 30 May qarax ka dhacay degmada Afgooye waxay la beegsadeen gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga ee degmada Afgooye Xuseen Jibriil haatanna ahaa sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxaana la xaqiijiyay inuu dhaawac ka soo gaadhay isaga iyo mid ka mid ah istaafkiisii kowdii bishii Juun qarax al-shabaab ka fuliyeen degmada Daynile ee magaalada Muqdisho waxay la beegsadeen sarkaal gaashaanle ah oo lagu magacaabo Salaad Isxaaq Yuusuf oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka dawladda qaraxan waxa ku dhintay hal askari waxa kaloo ku dhaawacmay sarkaalkaasi iyo afar kaloo ka mid ah ilaaladiisii isla kowdii bisha Juun degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho waxa weerar al-shabaab ku qaadeen lagu dhaawacay sarkaal ka tirsan ciidamada oo lagu magacaabo Xasan Abuuje labadii bishii Juun Cabdikariin oo ahaa sarkaal ka howlgala mid ka mid ah safaaradaha dalalka shisheeye kana soo jeeda koonfur galbeed ayaa lagu dilay Muqdisho gaar ahaan tabeelaha Sheekh Ibraahim afartii bishii Juun Cabdifataax Ilkoole oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta waaxda cashuuraha gobolka Banaadir ayaa lagu dilay qarax ka dhacay degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho xilli uu gaarigiisa magaalada ku dhex watay 10 bishii Juun sarkaal ciidamada booliska ka tirsan oo lagu magacaabi jiray Asad Dhabari ayaa lagu dilay xaafadda Daarusalaam ee magaalada Muqdisho 12 bishii Juun degmada Hodon ee magaalada Muqdisho waxa lagu dilay Warsame Ismaaciil oo ku magac dheeraa Warsame Gadle kana mid ahaa ergadii soo dhistay xildhibaanada cusub gaar ahaan kuwa ka yimi Galmudug maalintii xigtay oo ahay 13 Juun Maxamed Cismaan Cadow oo ka mid ahaa ergooyinkii Galmudug ee soo doortay xildhibaanada ayay ku beegsadeen degmada Daynile ee magaalada Muqdisho 18 bishii Juun sarkaal lagu magacaabo Cali Shalow oo ahaa sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed horena uga mid ahaa maamulka degmada Afgooye ayaa lagu dilay 24 bishii Juun laba sarkaal ayaa lagu dilay afaafka hore ee saldhigga galbeed ee degmada Dharkeynley magaalada Muqdisho kuwaasi oo kala ahaa Cabdi Cusmaan Cali iyo Xuseen Cabbaas 5 bishii Juulaay laba qarax ayaa lagu weeraray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Muqdisho waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay 3 ka mid ah ilaalada wasaaradda 6 bishii Juulaay maantatii xigtay taliyihii ciidanka xoogga ee degmada Afgooye oo lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Cali loona yaqaanay Tuug Madow ayay ku dileen qarax 9 Juulaay waxa isna Muqdisho lagu dilay nabadoon Cabdi Cabdulle Xaashi 13 bishii Juulaay Abuukar Xaaji oo ahaa sarkaal laba xidigla ah kana tirsan ciidanka asluubta sidoo kalena ka mid ahaa ergooyinkii soo doortay xildhibaanada ayay al-shabaab ka heleen degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho 28 bishii Juulaay madaafiic ayay dharaar cad ku garaaceen xerada tababarka ee Turkisom ee magaalada Muqdisho waa maalin kadib markii wafdiga madaxweynaha iyo agaasinka nabad sugidda mahasalaad ay ka soo laabteen Masar 31 Juulaay Cabdi Wali Jaakey oo ahaa nin dhalinyaro ah ayay ku dileen degmada Hodon ee magaalada Muqdisho 5 August waxa dhacay qaraxii kala bayr ee lala beegsaday ciidanka Gorgor waxa lagu dilay askar dhowr iyo saraakiil waxaana ka mid ahaa sarkaal lagu magacaabi jiray Cabdiqani Subagle oo caan ku ahaa General Takar 6 August Xasan Faarax Jiicle oo loo yaqaanay Sagaar Ari oo ahaa sarkaal gaashaanle dhaxa oo ka tirsanaa militariga dalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho 8 bishii August Maxamed Cabdullaahi Cusmaan Garas oo ahaa sarkaal sare oo darajadiisu ahayd gaashaanle sare ayaa lagu dilay iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho maantatii xigtay oo ahayd 9 August Muxyidiin Cadow Maxamed oo ahaa saddex xidigle ka tirsanaa ciidanka asluubta ayay isna ku dileen 4 darjin ee bartamaha magaalada Muqdisho 10 August oo taatii xigtay Jeenow Maxamed Ibraahim oo ka mid ahaa ergadii soo dhistay xildhibaanada Hirshabeelle ayay isna ku dileen magaalada Muqdisho isla maalinta dhexdeedii 10 August
qarax ayaa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore amniga degmada Afgooye Xuseen Jibriil 13 August Muqdisho waxa qarax lala beegsaday guriga xildhibaan Yuusuf Kabaale oo ka tirsan xildhibaanada dawladda xildhibaanku si dirqi ayuu kaga badbaaday qaraxaasi la doonayay in lagu kharajiyo balse waxa ku dhaawacmay 4 askari oo kamid ah ilaaladiisii 18 August iska Sanca ee qaybta degmada Yaaqshi ee magaalada Muqdisho waxa lagu dilay sarkaal dawladda ka tirsan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Galmaax waxa uu sidoo kale sarkaalkani kamid ahaa ergadii xildhibaanada Hirshabeelle maalintii xigtay oo ah 19 August waxa dhacay weerarkii hotel Xayaat shabaabku waxay sheegteen inay ku dileen 63 askari in ka badan 100 ay dhaawaceen halka dawladdu ay sheegtay dhimashada 22 ruux iyo dhaawaca 100 ka badan sawirrada qaarkood ayaanu haynaa dib aanu gelino xasuusta labiyo 20 August degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay gaashaanle dhexe Cali Axmed Barre Cali Dheere kaasoo kamid ahaa saraakiisha militariga xooga dalka 29 August degmada Dayniile waxa lagu dilay gaashaanle Xuseen Sheekh Maxamed Nuur oo ka tirsanaa qaybta hawlgelinta ciidamada xooga isla maalinta 29 August waxa qarax baabuurkiisa loogu xidhay lagu kharajiyay gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Yaaqshid ee caasimadda Muqdisho kaasoo la oran jiray Macallin Xuseen Filaweyne isla maalinta 29 August waxay qarax kale la beegsadeen fariisinka xaafadda Ifka Xalan ee degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho ay ku leeyihiin ciidamadu halkaas ay ku waxyeeleeyeen 3 askari maantaadii xigtay oo ahay 30 August xaafadda Cali Kamiin Wardhiigle ee magaalada Muqdisho waxa lagu dilay askari boolis oo lagu magacaabi jiray Dhagajoon isla maalinta gudaheedii 30 August waxay qarax la eegteen koloyo boolis oo maraya wadada Makal Mukarraba waa isla 30 bishii August waxay habeennimadii weerar ku qaadeen fadhiisinka ciidanka ee iskoyska Ifiko ee degmada Hawlwadaag isla 30 bishaasi waxay al-shabaab habeennimadii dagaal ku qaadeen fadhiisinka ciidamada ammaanka ee xaafadda Carafaad ee degmada Yaaqshid isla habeenka argagixisadu qarax ay la beegsadeen xarunta laanta barwaaqo ee degmada Wardhiigle 30 August habeenka kii xigay howlgal kooxda argagixisada al-shabaab ay ka fuliyeen degmada Dharkeynle ee magaalada Muqdisho waxay ku dileen gaashaanle Cabdi Ibraahim Ciid oo ahaa sarkaal sare oo khabiir ah kana tirsanaa booliska Soomaaliyeed 1 September oo maanta ah waxay ku dileen bartamaha suuqa degmada Wadajir Xaaji Cabdi Wiish oo kamid ahaa saraakiisha wasaaradda gaadiidka qaranka